Hi, I'm John Tory, and as Mayor of Toronto, I'd like to welcome you to our city for the Somali Week Soccer Tournament. 10,000 people, imagine that, 10,000 people attending the event from Europe, Australia, the United States, and of course, across Canada. Somali Week remains the largest gathering of Somalis in Canada, and I value the ultimate goal of the tournament, which is to promote a spirit of cooperation and to preserve the richness and beauty of the Somali culture and heritage within our great city. I also want to take this opportunity to congratulate the Toronto Development Association of Youth on their 25th anniversary of this tournament. Toronto is indeed one of the world's most diverse cities, and events like these provide an opportunity not only to celebrate the cultural traditions of our diverse communities, but also to appreciate the achievements of Torontonians themselves. Once again, welcome to Toronto. I hope you enjoy your stay in our great city. Somali Week halkan uu qaban jiray oo dad badan oo maaragtay igu horeeyay aniga ay soo wada qabteen oo magaalada halkan ku soo koobi karin waxaan jecelahay in sanadkan wax qurxoon oo dadka Soomaalida ah ay wada arkaan in Somali Week hore laga dhigi jiray early 90s inaan soo celino in ummad fara badan aan ku casuumay sanadkan inay halkan yimaadaan annagoo ah magaalada Canada gaar ahaan Toronto dadka dhan ay hal meel wada joogaan oo isku wada duuban yihiin oo uusan nina ka maqnayn sanadkan ayaan ii sheegaynaa ilaa labadii sano ugu dambeysay inaan isku wada duubnay oo wax dhibaato ah iyo problema aysan ka jirin dad fara badan aan casuumay oo Maxamed Ismaaciil ka mid yahay ciyaartoydii favorite-ka iyo ahaa ama aan aad ugu jeclaa waagii aan ninka dhalinyarada ahaa ciyaari jireen ciyaartoydii aan ugu jeclaa oo ka mid ahaa imaado rag fara badan ay ka imaadoo Minnesota macalinka weyne oo Seed taqaanii Qarindi oo ahaa macalinka Kismaayo magaratay rag fara badan ay ka imaadeen ciyaartoydii fara badan Virginia deganeed ama Atlanta deganeed ay imaan doonaan waxaan kaloo jeclahay macalin Cali Cismaan oo ahaa macalimiintii ugu horreysay basketballka ciyaartoyna ahaa asagana aan jeclahay inuu sanadkan halkan soo galo kubadda cag iyo basketball sanadkan looma kala harin Toronto ayay maaragtay isugu imaan doonaan insha Allah 2015ka July ilaa August waxaan jeclahay inay si wanaagsan oo fiican Welcome to Toronto Somali Week 2015 meel kasta aad joogtid Soomaaliya maanta waxaan u dabaaldegaynaa 25 guuraagii ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliyeed Somali Week oo meel kasta oo laga ciyaaro nin kasta Soomaaliyeed oo ku faraxsan yahay hooyo kasta marka waxaan leenahay 25 ka bilaabeyna ilaa labada bilood ku dhameeyna waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed aan ka wadnaa inay bilowdo ay mid noqoto sida calankaas kor ugu istaagay 25 sano calankaas koran u hayay marka maanta haddii calankeena la suro adduunkoodana laga intiraafay maanta waxay noo tahay farxad gooniya waxaan leenahay dowladdeena shacbigeena ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan welcome to Toronto aan leenahay ku soo dhawaada Toronto oo wax fiican aad iyo aad u sarreyso isu dhawaashaha iyo isgalka Soomaaliya badan oo soo qoonna isbaratay marka inaan meeshaas waxaan rabnaa jiilka naga dambeeyay inay sii wadaan waa ku faraxsanahay welcome to Toronto aan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصنطة عبد الكريم عمر معلم وهذه أنا أقوم عليا برنامج كان مانت جالس كأسيسي يوجش كحرنمو عبد الكريم هذاك أقول مصنطة كان عيارها وحواي وإن شاء الله تعالى وسنة دوري لعشرات الصومال ويك مجال تورونتو وحولي سبورت الصوماليات وحان جعلنا هنا ذكر مد الصوماليات مقصود من مجالنا أمارك عيارها سنة دوري إن شاء الله تعالى تدور وليارات بدن مهمة معها إن باش عيار وقتك مهمة قوة محاولات كثيرة كمان وشركة استعمل هاللام ودنكي وغلطنمدي وقتي سوق هذا إلى كود هذا الشركة سموي كاس عيار في حساس كعروض كل مكان
marka insha Allah tacaala waxaan u rajeynayaa ururka today sanad guuradu wacan inay sameeyaan insha Allah tacaala anigana wixii awoodeeda iyo mataqaana aqoonteeda inaan ku biiriyo ayaan jeclahay aad iyo aad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fikrin aad iyo aad u mahadsan tahay fursadan qaaliga oo aad siisay dadka ugu soo bandhigo. Somali Week sideeda wuxuu ka bilowday magaalada Toronto, faras magaalaha ayuu ka bilowday magaalada madaxda Ontario. ilaahay mahadiisna ma aragtay waxa ka soo wareegtay 25 sano marka waxaan rabnaa 25 sano in aan tusno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka North America, Europe, Australia ilaa Africa iyo meel kasta in aan tusno ma aragtay meeray ka dhashay Somali Week aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ma aragtay in aan ku soo dhaweyno magaalada Toronto ha ahaadaan dadkii ciyaartooyda legendka ahaa dadkii odayaashii tifoosiyaashii hooyooyinkii waxaana aad aan ugu faraxsanahay maaragtay sanadkan in uu noqdo maaragtay sanad wanaagsan wax badan ay isbedeli doonaan insha Allah aadna arki doontaan welcome ayaan leenahay Toronto ururka today insha Allah sanad guuridii 25aad waxaana arki doontaan meeray ka yimid. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما هذا أنا كابلا وحواي Somali Week. Somali Week أنا وحيقول لسي 95 كي مركز تورونو. مركزيته أيا كوحي Somali Week عشرة وقبلني. مركز هو كوحا واستدراين. مركز وحان كتلا جلسي أو سوي ماذا إنا بالشر إنا قبلنا. شركة بعد السنة لو بلامنا تي وبقولي سنة وحالا يقبطي عيار حافظها قبل وحمد حافظ والبني إنه عيار حافظه تجرانجي تي وحي كانت عيارتوني بسكو دفان مركا دماتن وحان بلاوني عياره ليقها أو صومالي ويقها مركا هذا الصومالي وأسكالي بنديت صومالي مركا سوقتي عريل بإحيات مرة البوحادة إجرت مركي عيار بالوقرافي ماذا هذا اللي بيحسين لعاده هذه المدة بدل وحيس عطب على كل حال عياله مرة البو وحنا عيسين عياله لقبته بركي لما أنا وحي القرافة لحاليو هذا اللي دب لو بلاو بركو هذا إلى مدة سعودي أنا ما هست أيانا آدي أيام ما سنتهاي وقتها عن آدي أدو ما دعلنا يا حرنمة.com أو آدي غيب وين هو قاعدين يسوي برنامجنا عن وضنه oo adduunyada iyo dacwada adduunyada email walba laga imaan doono lagana daawan doono aad iyo aad ayaan ugu mahadsanay inaan fursad u helo caawa inaan ka baahiyo barnaamijka aan qaban doono sanadkan haddii ilaahay yiraahdo haddii aan nahay Toronto Development Association of Youth oo markii la soo gaabiyo loo yaqaano today waxaan qaban doonaa haddii ilaahay yiraahdo barnaamij aad iyo aad qiimo iyo qaayo u leh oo hooyan u ah magaalada Toronto barnaamijkaas oo la yiraahdo Somali Week asagoo jirsaday 25 guuradiisii ayaan u dabaaldegayna sanadkan waxaan filaynaa inay kooxo Europe iyo North America iyo Toronto ay ka soo wada qayb galaan ciyaarahaasna waxay noo bilaaban doonaan haddii ilaahay yiraahdo bacda Ramadaan 25 of July ilaa 2nd August ay noo maaragtay dhamaan doonaan bisha 30keeda July haddii ilaahay na gaarsiiyo 2015 waxaan qaban doonaa xafladii aan ugu talagalnay in aan ku maamuuso 25 guuraagii ah waxaana aad iyo aad u filaynaa oo guest speaker noqon doono haddii ilaahay yiraahdo oo aan filaynaa confirmationkiisa inaan helno oo weli laakiin aanan helin ex prime minister farmaajo aan casuumi doono haddii ilaahay yiraahdo inuu naga ogolaado weli madaxweynaha ayaa noo socda confirmation ka helno marlabaad waxaan kusoo noqon doonaa midnimo.com ayaan dadka ugu sheegi doonaa inuu maaragtay automatically guest speaker uu noqon doono barnaamijkaas marka waxaan u sheegayaa oo aan farayaa dadweynaha magaalada Toronto ku nool iyo Europe iyo dadweynaha iyo Soomaaliya in aan barnaamijkaas ka dhici doono magaalada Toronto dalka Canada waxaan ka codsanaynaa each and everyone oo awood u leh inuu imaan karo ka soo qayb gali doono inuu naga soo qayb galaan waxaan ku soo dhaweyn doonaa gacan furan mar labaad aan ku celiyay 25 July 2015 after Ramadan haddii ilaahay yiraahdo ilaa 2nd August ayuu noo socon doonaa barnaamijkaas aan sanadkan ugu talagalnay in aan muujino waxyaabihii ugu horeeyay dadweynaha ka dhaca oo Somali Week ah oo laga bilaabay magaalada Toronto aad iyo aad ayaan u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسنت عبد الكريم يو ميديا حرنمو هل كان وحان وكم هدرا جرينا يا
ururka today oo qabanayo Somali Week 25 sano kadib ururkan uu soo maray marxalado kala duwan laakiin ciyaaraha Somali Week waxaa la aasaasay 25 sano ka hor iyadoo ururo badan kala duwan soo qabteen laakiin maanta 6 sano u dambeysay waxaa ciyaaraha Somali Week gacanta ku haya ururka today sanadkan waa 25 sano Toronto aad baa loogu dabaaldegayaa waqtigaas oo ku aadan waqtigii long weekendiga ee Kaabana dadweynaha dibadda markasta joogaan waxaa leeyahay usoo dhamaashatay Toronto waxyaalo ka dhacayaan xaflado badan ka jiraan waxyaalo badan ka jiraan marka arag wacan Toronto welcome to Toronto sanadguurida 25aad ee Somali Week oo ururka today la hayo welcome good night السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku faraxsanahay macaawo inaan ka soo qayb galay website-ka xornimo oo markasta u soo taagan in dhalinyarta oo magaalada Toronto ay wax ka qabato ay markasta u soo diyaarsan yihiin in ay soo kobciyaan ciyaaraha oo sanad kasta la dhigo magaalada Toronto sanadkan ay isku imaan doonaan haddii ay dhowr iyo 12 team oo Canada iyo dibadda laga wada imaan doono waxaan ku faraxsanahay in aan diyaar u wadanahay caruurteena ee magaaladan ku dhashay ama ku soo koray in aan ka badbaadino problemka ka haysta wadankan in loo diyaariyo after school programs ay dadkii ay soo dhawaanayaan ku soo wada midoobayaan waxaan ku tala jiraa mar kastaba in aan mideyno kooxaha iyo dadka ku mashquulsan in ay u diyaariyaan sanad kastaba ciyaaro ay ku tartamaan dhalinteena meel kasta ay joogaan marka diyaarna waxaan u ahay mar kastaba intaan awoodo inaan qayb ka geysto qof sportive ma ihi laakiin waxaan diyaar u ahay in aan wada mideeyo ummadda Soomaaliya meel kasta jooga yaryarkooda sidoo kale si ay mustaqbal fiican ugu lahaadaan wadankan ay magacooda iyo Soomaalinimadooda iyo diintooda ay ku ilaashadaan marka waa arrin aad u wanaagsan waxaad website-ka xornimo oo sameynayo insha Allah inaad gacan ka geysataan dhalinyartan ee loo wada safan yahay maanta inay meel ka soo wada jeestaan ay wada tartamaan ruux riyaadi ay la yimaadaan discipline ay la yimaadaan si looga badbaadiyo dhibaatooyinka yaryarka ku haysta wadankan Canada iyo meel kasta ay joogaan marka khayr oo idin rajaynayaa welcome aan idin leenahay inaad arrintan oo kale aad gacan naga siisaan haddaad tihiin miidiyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو أنا وحن عادي أقول مهارنا يا chance كن وسيدي ويب سايت كحرنمو عبد الكريم آب أو ما تنتهي chance كان سيسي. مركو حقيقة وحن رواينا عن بيانيو أو عن بافيو هذه لاي هذا أنا بقول كم ده أوروبا today. أوروبا today وأوروبا كردستان مقالة تورونتو كندا. أورن أوبن أوي قفبول أو سوماليا حلبا كسارن. marka waxaan doonayaa inaan dadka u sheego sanadkan in la qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo sanad guuradii 25aad ciyaaraha Somali Week oo ay qaban doonaan ururka today oo ka duwan sanadadii hore oo dhan Soomaali oo dhan way isku timid dad badan oo la janaaba dibadaha ka wada imaanaya waxaan doonayaa martida imaanaysa haddii Ilaahay yiraahdo in qof wal oo Toronto degan uu xil ka saaray oo anaga kaliya oo ururka today ah aanu xilna ka saarnay qof walba waxaan doonayaa inuu gacmo furan ku soo dhaweeyo dadka martida hadhow markay u tagnana sida ugu lisnay inoogu hambeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa insha Allah maaragtay dadka Soomaalida ay maaragtay imaanaya waxaan leeyahay Ilaahay fududeeyo si wanaagsan waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay noogu dhameeyo si khayr qabta Ilaahay noogu dhameeyo waxaan leeyahay soo dhawaada website-ka xornimona waxaan doonayaa insha Allah inaan u mahadnaqo aad iyo aad baa cabdikariim mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana mahadsan tahay waxaan caawalkan u joognaa barnaamijkeeni aan isku diyaarinayna ciyaarihii Somali Week sanadkan samarka oo u dabaaldegan 25 guuradii ciyaarihii Somali Week oo magaalada Toronto ay ahayd hooyadii sportiga Somali Week sanadkan 25 guuradii ay u diyaar garoobayso waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto aan u sheegaynaa inay kasoo qayb galaan ciyaarahaas oo ka duwan yihiin ciyaarihii hore sanadkan maadaama dad badan oo ay imaanayaan waxaan leenahay welcome to Toronto. Toronto waa magaaladii hooyadii sportiga Soomaaliya laga bilaabay maantana waxaan u dabaaldegaynaa 25 guuradii barnaamijka waxaan leenahay iyadoo maasada cabdikariim everybody oo Soomaali imaanaya magaaladu waa welcome tiimam kulli ilaa 12 tiim dhalinyaro 4 tiim oo youth and 16 ilaa 6 tiim oo odayaal ka imaanaya North America Europe intaba waa ciyaarayaan waa 22 tiim
baawood isboortiga meel la joogto odayaashooda kulli bay kasoo qayb galayaan anoona hebel hebel ku dhigi karin magac mal waa inta ummad magac leh waa kasoo wada gelaysaa sanadkan waa huge daafin waa karabaanihi waa Somali Week ummadda Toronana marti loo yahay ogaato ummadda si magaalna war u yaqaana soo dhaweynta iyo sharada abdigii aad waa maasan tahay barnaamijku xirmo waa aad la xukuumad alina wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga waa Cabdi Ali Jibril ahna ciyaartooydii gorisamaadkii oo u ciyaari jiray kooxdii wuxuu taas waa intaas introduce-kayga haddii kala u soo laabto anigoo ka mid ah ururka Today ahna dadkii aasaasay 25 sano ka hor sanadkaana waxaan qabnaa sanad guuradii 25 hadduu Ilaahay yiraahdo walkaana waxaa ciyaaro ku qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ciyaaro dhalinyaro kuwa yaryar iyo kuwa cuslaaday oo aniga aan ka mid ahay hadduu Ilaahay yiraahdo in sanadkan halkaan ku qaban doono maadaama ay tahay sanad guuradii 25 dad badan oo dibadda ka imaanaya ay jiraan hadduu Ilaahay yiraahdo Mareykan Yurub Toronto nawaaxigeeda oo dhan marka sanadkan waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo laga sheekeeyo marka intaas aan rabay inaan dadkii ummadda Soomaaliyeed u sheego qof walbana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay welcome sanadkan halkaana waxaan rabaa marka inaan uga mahadceliyo Cabdikariim iyo web page-kiisa xornimo.com والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cabdikariim waa salaamantahay adigay waxaan u mahadcelinayaa website-ka xornimo waa website oo mar walba ummadda u shaqeysa sportiska sanadkan waxaan qabanaynaa sanad guuradii 25 waxaan iskaga imaanaya Europe iyo Australia iyo Toronto odayaal waa jiraan dhalinyarada waa jiraan caruurtii waa jiraan waxaa kaloo sii dheer sanadkan lagu darmeynaa orodada buutinta lagu sii daray marka dadweynaha waxaan leeyahay kusoo dhawaada 25 sanad guuradii 25 wuxuuna bilaabanaa micnaha July 25 ilaa 2nd August hadduu yaraa waa maadsantahay warahmatullahi wabarakatuh Cabdikariim aad iyo aad u maadsantahay caawa inaan meeshaan aad igu soo dhaweysido ka hadlo waxaa sharaf weyn ah waxaan horta aan salaamayaa ciyaartooyadii qaranka ee kubadda miiska meel kasta joogaan taada labaadna ciyaartan oo Somali Week waxaan bilaabnay 1992 ilaa hadda ku dhex jirnaa guulna waa ka gaarnay haddana guul tii ugu weynaan ka gaaro hayna maxaa jiro adduun hadda laga imaana ciyaartooydii qaranka Soomaaliyeed oo ah Cafiifi iyo Maxamed Ismaaciil iyo Bashiir Jeeni iyo iyagan masaladkan laga soo qayb galayaan American waxaa ka imaanaya Cabbaas Saada Soomaaliyo caraale iyo dadkii horey u asaasay ciyaarahan oo la qabanayo Somali Week dadkii ugu horreeyay asaasay ahaayeen iyagana waxaa leedahay sharaf aad mudantihiin inuu ku soo dhawaado sanadkan ciyaaraha inta lagu qabanayo 2015 waxaana soo qabanqaabiyeen dhalinyarta cuslaatay oo guddoomiye ah Faarax Cali naadigana magaciisa Today waxaa guddoomiye ka Cadar magaciisa Cantar waxaa joogaan Cabdirasaaq Cadar Cali Mudee Cadde oo maamulka si fiican u wado isagana waxaa leenahay qeyr Allah siiyo waan jecelnahay inaan Soomaali hal far aan isku duubno hal meel aan kasoo wada jeedsano laakiin ha ku jirto insha Allah aan ka bixinayna laakiin kasanada isarada maba waan ku dadaalinaa si hal meel aan ugu soo jeedsano waa mahadsantahay Awbaari waxaan oo soo rabnaa inaad halkan ka salaantid ciyaarta magaalada Toronto kolay dhamaan waxaan filayaa inay aad iyo aad ku jecel yihiin qofka alaala qofka aad ka jeceshahay magaaladan waad ka salaami kartaa xornimo والله Soomaalida oo jeclaan ma من عالها وانها انت سنة سبورت كل حجري هذا حاجة تومر قرن أكبر دميسك سكر واسوع يعني كون عليكم كابتن كو هاجر سي عنتري يوسف شقاقي اوكي وجوغان ما عليك اي واحد هاجر مع الدكه من سجن معلم آد وفي عموه سيروا علينا عفمات يعمل لنا خير الله قصيه سومالي ليش هذا الجوكتير كل جن
waxaa ilaahay kaga rajayaa caafimaad iyo cumar dheer aynaan helna hal far hal Soomaali aan jeclahay waxaana wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudana oo idin ahaantiima meel kasoo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeed ku barateen inuu idinka soo baaho bartamaha magaalada Toronto magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashada aad had jeer barnaamijka nala qaybsataan fikradihiina iyo ka qayb qaadashada aad baad ugu mahadsantihiin toddobaadkan waxaan idin haynaa barnaamij lamida kuwii hore oo ku saabsan qurbo joogta iyo guud ahaan ummadda Soomaalida ee iyadu 25 sano iyo 22 sano ka hor waddankeeni ka soo qaxday waxyaabihii ay kala kulmeen iyo waxay ku soo kordhiyeen barnaamij ku saabsan sanadkan magaalada Toronto waxaa ka dhici doona barnaamij aad u ballaaran toddobaadka Soomaalida ee loo yaqaan Somali Week ayaa sanad walba lagu qabtaa 25 sano inaga tagtayna barnaamijkaasi wuu soo socday haddaba 25 guuradii ayaa dhici doonta 25 bisha July iyo August labadeeda inta u dhaxaysa